madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye markii la dhisayay annaga horta ani kuleyba iyo saaxiibo badan hadda meeshan joog dadkii wax ka dhisay kama mid ahayn qoladii mucaaradsaneed ka mid ah hal haysa marka waxa uu ah kelmad la yiraahdo waaye arag wax isku wadi kara marka waa isweydiino waxaan dhigi waaye arag wax isku wadi kara madraso nabadii nolol kama soo bixi kareysay wax jira darasadan waxaan dhigi ar iyo wir lagu barto faca iska celi lagu barto aniga kaliya wadaniga lagu barto haddaad iga aragtid dowladda qarandumiisa taa lagu barto ninka soo baxay dadka isku wadi karaan madaxweyne horta waxaan rabaa inaan ku qiro inaad tahay qofkii koobaad oo nabadoon ah oo akademiyada nabadii nolol ka soo baxay qodobka labaad oo runtii aan islahaa sidee la yeeli doonaa galmudug dadka markay xilka u tartamayaan soo jiidashada iyo qancinta dadka aad ay runtii ugu badan yihiin laakiin marka qofka xilka uu qabto waa la waayaa waxa uu sheegayaan inta badan waxaa dhici karta inay soo bixi oo waqtada Soomaalida ay ku maamaado inaad duugtay iyo inaad doorato markaas kuugu dambeeyay marka waxaan islaahay ninkan odaga adoo akademiyadii ka badbaado kulleyba barlamihiisu halkaas ay aadi doonaan midnimada iyo dad isku dumida iyo way aragnimadan uu sheegay midna waa la weyn doonaa inuu marka horta markuu kursiga ku fariistay hareerihiisa inta fiiriyo waa layga maqan yahay dadkii hala ii doono qof kasta oo waco oo guri iyo geed kasta iyo ama gudaha jooga ama dibadda jooga oo isku baadi goob madaxweyne horta ku maasanta aadana kaga mahadcelinayna waxaa kaloo sidoo kale runtii dhaqan ugubana way ku tahay siyaasadda iyo dadkan reer muduga dad dhib badan waa ayaa la yiraahdaa runtii aan xaalkoodu sahlanayn nin reer muduga hadda kor waxaa la yiri afar caad hilib oo haystaa marka su'aala la weydiiyay waxaa la yiri afar caad hilib aad haysataa nina ku yimid labo ka daf meeqa ku hartaay oo aad haysataa marka wuxuu yiri shan caad haysta waxaa la yiri shan caad ku haysta afar aad haysatay laba laga dafay sida shan ku haysta karta waxa haystaa afar aheed marka waxaan haystaa yiri afartii cad iyo ninkii meedkiis shantaas caad haystaa dadkii ka maqnaa horta madaxweyne inaad meedkooda la ii doonay isku baadi goobta si nabadgelyo oo ku maasantaa iyada waa runtii dhaqan ugu boon islaanahay oo sidoo uu yahay in la isku tanaasulo dadka la isku baadi goobo la isqanciyo wax runtii sunnah oo jideeday waaye waan lagaaga dayo doonaa insha Allah hadii alla yiraahdo anigii inta ila mid kaaba waan ku ambalyeynayna diyaaraan u nahay insha Allah garab iyo gaashaan inaan ku noqono wax kula qabano wixii naloo diray aan doono wixii dhimanaan dhamaystirno meesha galmudug hadda ay joogtaan ee hore uga sii socotaysan dib uga laaban insha Allah saasaan rajeynayna diyaaraan u nahay aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.